xildhibaanad 28 xildhibaan ah waxay noo soo gudbiyeen mooshin ku saabsan in ajendaha lagu daro warbixin ku saabsan magaalada Soomaaliyeed oo loo leynayo maxaad Soomaali u tihiin in ay u baahan yihiin in arrimahooda la eego baarlamaanka warbixinta baarlamaanka ka codsanaya in la cambaareeyo xasuuqa ka socda magaalada Laascaanood oo ay ku hayso maanta bulsho barakicin iyo burburi hantiyeed oo ujeedka ugu weyn ay ahayd dad Soomaaliyeed oo doonaya midnimada Soomaaliya in la leeyahay maxaad u doonaysaa saa ogtihiin dad Soomaaliyeed oo reer Laascaanood ah Laascaanood 30 sano soo dhaafay deegaan ku ahaa ganacsanayay ka shaqaysanayay ayaa maalmaha ka mid ah muddo hadda laga joogo 1 sano bari ilaa ku dhawaad 2 sano ayaa si xaq dara ah iyagoo dad Soomaaliyeed ah loo mustaqbalinayo walaalaha cabashada ay sheegeen iyo dadka in loo gurmado iyo sidii muxuu ahaa dadkii ka dhacay muxuu ahaa meesha la yiraahdo Turki iyo sidii loo gurmado si lamid in loo gurmado dhaqaale loo aruriyo oo dadka la garab dhawaatada ka dhacday dhamaantaanadu waa ka xunnahay horeyna aniga hadda koorta taasiir waa oo yar intaan ajendaha la saxiin wax yar oo soo qoray baan rabaa inaan sheego ilaahay anaga bixiya dalka Soomaaliyeed meel badan oo dhawaato ka jirta xildhibaanad 28 xildhibaan ah waxay noo soo gudbiyeen mooshin ku saabsan in ajendaha lagu daro warbixin ku saabsan magaalada Laascaanood ajendaheena markii hore waad ogtihiin waa loo qornaa waa idin qiimiyay qodobkaas oo codsigaas ah ay xildhibaano soo jeediyeen sideedii mooshin markii loo keeno guddoonka laba nooc waay mooshinka caadiga markii la keeno guddoonku wuxuu xaq u leeyahay 5 maalmood maalin shaqo inuu haysto ka soo baaran digo hadduu sharciga waafaqsan yahay baarlamaanka soo hordhigo mooshinka labaad oo kale la keeni karo wuxuu yahay kan hadana horyaal oo kale ajentii la soo qoray xildhibaan intay warqad soo qoraan iyo guddoonku soo gudbinayaan waxay leeyihiin qodobkaas oo ajendaha ku jirin in lagu daro ajendaha ay soo jeedin karaan mooshinka hadana loo keenay saas ku saabsan yahay mooshinka kaas amal markii la keeno go'aanka guddoonka iska ma laha xildhibaanada iska leh ayaga la weydiinayaa haddii ay ogolaadaan ha lagu dareeyaan waa lagu daraa haddii yiraahdaan laguma dari karana waa laga joojinayaa marka sidaa daraateed inta ajendaha la ansixinin ajendaha macnihiisu wuxuu yahay xildhibaanada noo keenay waxay noo sheegeen hal qof inuu warbixin bixinayo hal qof la sakan gareynayo oo warbixin magaaladaas ku saabsan inay noo sheegayaan ay noo sheegeen ajendaha mooshinkan waa kaas 28 xildhibaan soo saxiiray marka arrintaas waxaan rabnaa in lagu daro xildhibaanada ogol inay noo ogolaadaan inta ogol inay gacan ku taagaan dejiya inta xildhibaan diidan in maaragtay dib loo dhigo inta la og okay waa dejiya inta ka aamustay okay xildhibaanada sharafta leh aad iyo aad u mahadsantihiin waa u jeednaa dadka in lagu daro ogolaaday maartay taas runtii ma jiro saa laba qof oo saddex qofood ka diiday ama ka aamustay sida daraadeed ajendahan ku darayna marka warbixin caadi ah waxyaalo kasta meeshaas inuu dhab yaalo ognahay waana ka xunahay dagaal walaalo maartay dhaxdiis maraya meesha ka taagan waxaan rabnaa in yaani warbixin oo laga maartay noo sheego wixii dhab meesha ka jiro ayada oo maartay waxyaalo oo caatifi xasaasiyad kale laga ilaalinayo warbixin caadi inay noo noqotaan rajaynayna koow asigaan ku bilaaban xildhibaanada mooshin keenay halkii qof oo warbixinta bixin lahaa inuu maartay soo istaago بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدن قدومية شكله اللي بعنا شرفت له والوضعنا بعض الصحافة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan maanta rabaa inaan warbixin kooban ka bixiyo magaalada Laascaanood oo muddooyinkii ugu dambeysay dhibaato xoog leh oo saameyn weyn ku yeelatay siyaasadaha ama nolosha dadka Soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka bixiyo saalo socotaan waxa ka dhacay mudaharaadyo lagu diidayo dilal qorsheysan oo magaalada ka dhici jiray mudaharaadaas waxay bilaabmeen 28 December sanadkiina dhaafay mudaharaadadaas oo dadku ay ku sheegayeen cabashadooda ah dhibaatada magaalada ka jirta dhowr boqol oo qofna waa lagu dhaawacay dadkii halka ku dhintay ama ku dhaawacmay lambarkooda oo tiro badan
waxaa qirtay oo sheegay inuu laayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi markaa ka bacdi waxaa magaaladii gacan ku haynteeda la wareegay dadkii shacabka ahaa ee mudaharaadayay iyo odayaashoodii dhaqanka waxaa ka furmay magaalada shir odayaasha dhaqanka deegaankaas ay uga tashanayeen aayahooda iyo sidii ay u noolaan lahaayeen muddo 2 toddobaad ka bacdi waxay soo saareen go'aano ay ku sheegayaan waxa ay rabaan iyo sida ay rabaan inay u noolaadaan iyo cidda ay rabaan inay wax la qabsadaan go'aanadoodaas waxay salka ku hayeen midnimada Soomaaliya waxay ku dhawaaqeen inay Soomaali ka tirsan yihiin inaanay go'itaanka ogolayn inay yihiin dad u taagan midnimada iyo qarannimada Soomaaliya ee lagu heshiiyay 1960 waxay la soo baxeen calanka Soomaaliya markaa ka bacdi waxaa loogu jawaabay Soomaaliyana ma ahaan kartaan mana tashan kartaan madaafiic iyo xabado iyo dagaal maalintii 14aad maanta socda waxaa meesha ku dhintay dad tiro badan oo boqolaal kor u dhaafaya waxaa ku dhaawacmay dad kumayaal ah oo maatay iyo caruur badan waxaa ku dumay guryihii magaalada badankoodii waxaa dumay isbitaaladii oo la dumiyay dawladda Soomaaliland dumisay isbitaaladii magaalada goobihii caafimaadka korontadii iyo meel kasta oo qofku nolol ka helay waxaa intaas oo dhammi ay u dhacayaan ma tashan kartaan ma hadli kartaan ma mudaharaadi kartaan Soomaali ma ahaan kartaan waxaa maanta ka jira dhibaato ah inay magaaladu ku jirto xiraysan tahay siij ku jirto oo meel xitaa gargaarka uga soo galaanay lahayn dadka u dhimanaya xabadda waxaa ka daran dadka dhibaatooyinka la u dhimanaya magaalada Laascaanood sida ay qireen hay'adaha UN-ta oo dadka gargaara waxaa ka barakacay dadka badan 120,000 oo qof dadkaas waxay ku daadsan yihiin deegaanada magaalada lambar ka badan 60,000 oo qof wuxuu galay oo la diiwaan geliyay Itoobiya mudana gudoomiye waxaan markaas intaa ka bacdi jira dadka Soomaaliyeed oo loo leynayo maxaad Soomaali u tihiin in ay u baahan yihiin in arrimahooda la eego baarlamaanka warbixintiisa la keeno waxaan bogaadinayaa marka ugu horeysa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo runtii isu taagay oo ka hadlay inaanu ogolayn in la caburiyo dadka midnimada Soomaaliyeed raba uu garab taagan yahay uu taageersan yahay waxaan kaloo bogaadinayaa go'aankii xukuumadda ka soo baxay ee ahaa hal la dhageysto odayaasha dhaqanka ee Laascaanood jooga go'aamadoodana waa qaadanayna waa tixgelinayna waxaan kaloo bogaadinayaa dadweynaha Soomaaliyeed ama waxgaradka Soomaaliyeed dhammaantood taageeray arrintaas waxaan ugu dambeyn bogaadinayaa odayaasha isimada ahaa ee shalay bayaanka ka soo saaray magaalada Hargeysa ee taageeray dadka Laascaanood jooga inay xor yihiin oo sheegan karaan waxa ay rabaan iyo sidee u noolaadaan mudana gudoomiye waxaan soo jeedin lahaa baarlamaanka Soomaaliya waa meesha laga ilaaliyo midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed xildhibaanadii u dhaartay midnimada Soomaaliyeed baa fadhiya in loo hiiliyo dadka Soomaaliyeed ee Laascaanood jooga ee midnimada raba in loogu hiiliyo midnimada ay rabaan in loogu hiiliyo inay Soomaali rabaan in loogu hiiliyo inay qarannimada Soomaaliya difaacayaan waxaan baarlamaanka ka codsanayaa in la cambaareeyo xasuuqa ka socda magaalada Laascaanood oo ay ku hayso maamulka Soomaaliland waa maasantii qofka sakangareela ha hadlo bismillahirrahmanirrahiim maasanidooda gudoomiye mudanayaasha baarlamaanka howlwadanada baarlamaanka bahda saxaafadda iyo matasharafta kale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh hadalka intii ugu badnayd xildhibaankii hore soo jeediyey ujeedka ugu weyn wuxuu ahaa inaanu baarlamaanka Soomaaliyeed uga warbixino deegaankayagii nalaga soo doortay iyo xaaladda uu ku sugan yahay mudaaban ugu mahadsan tahay mudana yaari marweyn sida aad la socoteen xaaladda magaalada Laascaanood waxaa ka dhacay xusuuq bulsho barakicin iyo burburiin hantiyeed oo ujeedka ugu weyn ay ahayd dad Soomaaliyeed oo doonaya midnimada Soomaaliya in la leeyahay maxaad u doonaysaa midnimada Soomaaliya inkastoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaruhu si wacan uga hadlay haddana xaaladda magaalada Laascaanood hadal kaliya ma bogsiin karo waxay u baahan tahay in la qaado tallaabooyin dheeri ah si loogu gurmado ummadda Soomaaliyeed
inagoo gudanayna baarlamaan ahaan waxaan soo jeedin lahaa qodobadeena dastuuriga ah ee 56aad 61aad iyo 69aad oo kulligeed ka hadlaya in baarlamaanku u guto shaqadooda si ay ku jirto danta dalka iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed waxaan qabaa inaynu ka qaadano go'aamo qaraar sidii bulshada Soomaaliyeed ee dhibaatadu gaadhay wax loogu qaban lahaa waxaan soo jeedinayaa inaynu mudane gudoomiye sidii looga qaadi lahaa ciidamadaas magaalada duqeynaya baarlamaanku uu qaraar ka soo saaro dadka barakacayna sidii loo caawin lahaa iyadana in qaraar laga soo saaro way ku mahadsan yihiin waxgaradka Soomaaliyeed ee meel walba jooga ee ka hadlay inagana mas'uuliyadda ayaana faraysa inaynu uga hadalno si positive ah shuruuc waynu ansixinaa sharciyada baaxadooda markaynu akhriyana waxa ku qoran dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haddii dadkii la leynayo shuruuc ayaa infaacsan doona marka si aynu u badbaadino ummadeena waa inaynu runta ka hadalnaa waxyaabaha ummadda iyo dambiyada ummadda laga galayana aynu u hadalnaa haddaynan dad Soomaaliyeed oo la dilayo inaan oran karin hebel baa dilaya ma garan karo dowladnimada Soomaaliyeed meesha gaari doonto iyo sida aynu dowladda Soomaaliyeed uga shaqeyn doono waana mahadsantihiin marka hore waxaan ku darsanayaa dhibka ka socda laascaanood tacsideedii ayaan ku darsanayaa runtii aad baan ugu xunnahay dad Soomaaliyeed maalul badigooda qabanayo maalul loo dilayo waxay aaminsan yihiin fikirkooda loo dilayo aad aan ugu xunnahay maanta Soomaaliya meesha u socoto waxay ahayd in dadka Soomaaliyeed iyo gobolka la walaaleeyo maanta in Soomaaliya dhexdeeda si fil war ka bilaado dadka gaar isku soo laabtan aad aan ugu xumahay waxaan rabaa inaan halkaan waxa u soo istaagay inaan codkeyga ku daro runtii dhibka laascaanood maanta ka socdo dagaalka laascaanood ka socdo dilka laascaanood ka socdo kaliya ma ahan wax maanta bilowday dhibkan dhibaa ka horeeyay saa ogtihiin dad Soomaaliyeed oo reer laascaanood ah laascaanood 30 sano soo dhaafay deegaan ku ahaa ganacsanayay ka shaqaysanayay ayaa maalmaha ka mid ah muddo hadda laga joogo 1 sano iyo bar ilaa ku dhawaad 2 sano ayaa si xaq dara ah iyagoo dad Soomaaliyeed ah loo soo musaafiriyay laascaanood musaafiris kaliya kuma ekeen dadkaas iyagoo qaarkood shaqooyinkooda ku maqnaa suuxi waaga markuu beriyay iyagoon ka warqabin dadka shaqooyinkooda jiray ardayda iskoolaadkii dugsiyada quraanka jireen ayaa candhameejyaan loo keensaday dadkii si arxandara ah si Soomaalinimo ka baxsan si ajnabi ah ayaa loogu soo raray dadka hataa waxaa loo ogolaan waayay in waqti la siiyo hantidoodii meesha kala soo baxaan caruurtooda dugsiyada quraanka iskoolka jiraan in loo soo wado caruurtooda la soo baxaan ayaa loo ogolaan waayay marka waxaan rabaa Soomaali inaan u sheego ama aan la wadaago dareenkeygii dhibka laascaanood ma ahan dadka hadda meesha ku dagaalamaya kaliya ma ahane dhibka dhibaa ka horeeyay dadka anaga aaminsanno dhibkooda in meel la saaro lagu doodo ayaan rabaa ilaa hadda dadkaas waxa ka maqan hantidoodii caruurtoodii toosina la isku ogaay labaale raali ah toosina la isku ogaay dhacdada meesha ka baxday ku jirta dhacdada laascaanood ka dhacay waa in lagu daraa dadkaas waana maasantihiin bismillah gudoomiyaha iyo gudoonka baarlamaanka sharafta leh miidiyaha iyo walaal wasiirada wax nagala jooga waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gudoomiye waa mahadsan tahay runtii waxaan is leeyahay waxa laascaano laga sheegay culayskaasna ummadda Soomaaliyeed qof kasta meel kasta joogto waa waxay u jeedo in dhibaato halka ka jirto hayeeshee waxaa nooga aadan inaan meesha dowladda xukuumadda joogta madaxweynena waa ka hadlay xukuumadduna way ka hadashay doorka 90% waxaa iska leh xukuumadda in arrinta meesha ay ka jirta iyo sidii loogu gurmo lahaa iyo muxuu ahaa dadka dhibaatada soo gaartay sidii loo daaway lahaa waxaan la soconnaa qayb ka mid ah in loo qaaday Hargeysa qaybna loo soo qaaday Muqdisho meeshaasna ay dhimasho iyo dhaawac iyo dhibaato ka jirto dadka ku dhimanaya inkastoo ay dhinacna ciidan yihiin dhinacna dhimashadoodu ay shacab u badan yihiin waxaan leeyahay cid kasta oo ku dhimatay innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaahay ha u naxariisto waxaa nooga bannaan baarlamaanka hadda ka hor gudoomiye waxaad magacaawday guddigaasuna wuxuu keenay inuu dhaqaaqi waayo mana rabno in hadda baarlamaanka naga kala qaybsamo waxaan soo jeedinayaa walaalaha cabashada ay sheegeen iyo dadka in loo gurmado iyo sidii muxuu ahaa dhibkii ka dhacay muxuu ahaa meesha la yidhaha Turki iyo sidii loogu gurmado si lamid in loogu gurmado dhaqaale loo aruuriyo oo dadka la garab istaago doorka baarlamaanka leeyahay inaan ka qaadano
arrinkaasna aan baarlamaanka dhexdiisa aanan lagu kala qaybsamin. waxaan arkayaa hadda walaalo muxuu ahaa bannaankana markii mooshinka laga hadlayo waxaa jira xooga kala qaybsanaana gudahana hadda waan ka dareemaynaa. waxaan marka soo jeedinayaa guddoomiye adinkoo guddoon oo naga wakiila iyo xukuumadda in arrintaa loo istaago. baarlamaanka walaalahana waxaan ka codsanayaa qof kasta ee Soomaaliya uu xaq u leeyahay meel kasta oo Soomaaliya dhibka jooga ka dhaca in lala xanuunsado. halka xanuun fara badan ka jira. waxaan arkaya xildhibaanada Soomaaliland ka soo jeeday yaa ugu cuslaa maalin mar la hadlayay in la war dhibka xabadda la joojiyo, ciidamadan meesha laga qaado, dadkana ha loo gurmado. marka xanuunku uu wada hayaayana yuusan kala qaybsanin. walaalayaal hal aragti aan ku fiirino. arrinkaana waa ka wada xunna in qof shacab Soomaaliya uu ku dhinto meeshaas. guddoomiye waxaan ku soo koobayaa walaalaha halkaa ku dhintay iyo ku dhaawacmay wixii dhintan Allah u naxariisto. wax dhaawacana aan gurmad u sameeyno, baarlamaankuna door ka qaato. walaalahana intaasaan u soo jeedin inaanan ku kala qaybsamin dhexdanada inaan idin xasuusiyo. horta anagu waxaan nahay golihii shacabka, dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo mas-uuliyadana saaran. meel kasta dhab ka dhacan inaan ka damqan wixii karaankeena la qabano waa waajibaad dastuuri oo na saaran. arrinta maaragtay runtii xildhibaanada soo jeedin ay ka hadlaayeen saacanood dhibaatada ka dhacday dhammaantaanada waa ka xunnahay. horeyna aniga hadda koorna tacsiyi waa diray, madaxweynaha waa ka hadlay, ra-iisul wasaaraha waa ka hadlay. waxaana diyaar u nahay in maaragtay wax allaale ummadaas walaalaheena Soomaaliyeed dhibaatada ka dhacday loo xalin lahaa. wixii karaankeena wax lama hari doono. haddana weliba waa lagu mashquulsan yahay. marka hore barnaamij waxaa jiray yacni si guud ah walaalaheena Somaliland iyo maaragtay dowladda Soomaaliyeed in wada hadal oo wixii hoogoona kala fogeeyey walaalayaal marka ahaan kana maxaa la sameeyay qorshe noo socotay. dhacdadaana dhacday ayadana aad iyo aad dadkaas walaalaha ah dhaxdooda maslaxa iyo wanaag Ilaahay dhigo. annaguna waxaa maaragtay naga go'an wax lama hari doono insha Allah. wixii walaalaheen aan ku dhaxgali lahayn ummadaas maaragtay dadka dhibaatada gaareen loo gurman lahaa. daraad anagoo shir u fadhiisanay aniga madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha anagoo shir u fadhino safar degdega madaxweynaha soo galay, asigana waa soo laabtay. wax allaala wixii aan qaban karno oo dadkaas helkeena badbaadadooda ah looma kala harayo. marka ogaada yacni waa run xildhibaanka dastuuri waa tahay deegaan doorashadiisa gaara maaragtay inuu lagu saaran yahay. haddana ogaada mid wadareedna waa naga wada saaran tahay. arrintaas dhammaanteen ayna taabanaysaa. marka waad ogtihiin hadda anigu baydhabo waxaa idinkaga maqanaa 30 maalmood. arrin oo maaragtay ama tan camal noqota oo sii dheerata la lahaaba ilaahay nagu soo guuleeyey maaragtay waa la soo maslaxeeyey. waad ogtihiin deegaanadan hadda arrinta ka socoto oo yeer maaragtay deegaanada kale waa ka bedelan tahay. horeeya siyaasad oo maaragtay aan rabnay si loo gudbo walaalaheeni anagu maaragtay yani wixii na dhaxgalay looga gudbaa la lahaaba horey u jirtay. taas nooga istaakoleena nagu noqotay. haddana yani runtii dadka markaan isla hadalnay dhammaantood waxay ogol yihiin in wixii walaaltinimo aan ka geysan kar aan ka geysano. marka laasaanood nambar 2 ay noo tahay sidii xalkeeda loo gaari lahaa. shacabka Soomaaliyeed dhibaato ugu bixi lahaa uma kala harayno. marka arrintaas madaxweynaha maadaama uu yimid daraadna war meel noo joogay waa isku noqonaynaa. dadka maaragtay si gaara deegaanka waxa ku qaban karana waa la kaashin doonaa. walaalaheen Soomaaliland ta madaxdooda waan la xiriireynaa. marka arrintaas marna lagama gaabin doono. sida horta maaragtay mabda'an aan isla qaadano idinka oo raali ah. waa run inaad ka damqatiin waxaad u leedihiin dhammaanteena ka dabqanayna wixii meesha ka dhacay. marka aniga waxaan dhihi lahaa arrintan maadaama madaxweynaha aan sugaynay noo soo noqday daraan qorshe meel noo joogday. marka aniga waxaan rabnaa in yacni madaxda qaran ahaana kale inaan ka soo saarno. aniguna wixii karaankeena maaragtay aniguna waxba la kala harin oo taladeena halmeed ka wada socoto. taas ayaan soo jeedinayaa. marka hadda arrintan ilaa aan madaxweynaha iska aragno asiga aad u dhaxgalay daraad anigoo maaragtay isla joognana yani talo weyn aan ka gaarnay. marka aniga waxaan qabaa marka aan is aragno meesha waxaan noo marayaan si aan u noqono aniga xukuumaddii madaxweynahaba yani dad hal meel maaragtay ka wada socdo iska warqabo qof wixii ku aadan qabanayo si aan u noqono. marka arrintaasna lagu samo. haddan maaragtay warbixintii waa dhegaysanay waana ku mahadsantihiin. marka waxaan u gudbaynaa maanta aniga waxaan isleeyahay inta hanoo joogto taladaas marka madaxweynahaas aragno wixii aan la soo kulmno waa idinku soo celin doonaa. marka arrinta maanta inta hanoo joogto warbixintii waa qaadanay. horeyna waa laga dheregsanaa waa run wixii meesha ka jiray. haddana waad ku mahadsantihiin. marka waxaan gudagalaynaa hadda ajandaheena kale wixii marka mas-uuliyiintaas aragna tala amnoo soo baxna waa idinkula soo noqon doonaa haddii alla aadaan u mahadsantihiin. qodobada kale aan u gudubno arrintan hadduu ilaahay yidhaahdo dhamaystirkeedana waa isla ogaan doonaa insha Allah. aadaad u mahadsantihiin.